Assalaamu calaykum. Waqtiga iyo qiimaha uu nolosha u leeyahay. Waqtiga iyo qiimaha uu nolosheena u leeyahay waa mid Alle Subxaanahu wa Tacaala uu noogu sheegay aayadaha Qur'aanka Kariimka ah, waxaana uu ku dhaartay qaybo ka mid ah waqtiga. Shareecaduna waxayna faraysaa inaan ka faa'iidaysano waqtigeena si aan u kasbano nacfi badan. Axaadiista Nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxayna farayaan ilaalinta waqtiga. Waxaadna ku dareemi kartaa waqtiga iyo qiimaha uu noogu fadhiyo 5 salaadood oo ah kuwa xadidan. Salaad kastana lagama yaabo inaad tukato waqti aan waqtigeeda ahayn. Saxaabiga la yiraahdo Cabdullaahi bin Mascuud radiyallahu canhu ayaa laga soo wariyay inuu yiri, waxaan aad u dhibsadaa inaan arko qof aan waqtigiisa uga faa'iidaysanaynin arrin adduun iyo mid aakhiraba. Haddaba su'aashu waxay tahay, sideen waqtigeena uga faa'iidaysan karnaa? Si aad waqtigaaga qiimihiisa uga faa'iidaysato, waa inaad ka dhaadhicisaa nafsadaada tusaalooyinkan. Ugu horreyn, ulajeedka waqtigaaga ha kuu caddaado oo qorshe yeelo. Waa inaad qorshe yeelataa, tusaale inaad ka fikirto wixii aad qaban lahayd iyo sidii aad u qaban lahayd iyo sidii aad u kala hormarin lahayd. In waqti gaaban aad ku qabato hawl badan, waxyaabaha kuu sahli karo waa inaad barataa inaad ka hortagto mushkilado badan adiga oo u maraya waqti gaaban. Waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo hawl adag, ku dhaqaaqideeduna waa arrin wanaagsan. Mar walba oo waqtiga aad ka faa'iidaysato, naftaadu waxay dareentaa farxad, waana dareen kuu jiidaya dhanka horumarka. Mar walba oo aad ilaaliso waqtiga iyo qiimihiisa, waxaad noqonaysaa qof rajo wanaagsan ka leh nolosha, horumarkiisuna uu joogto yahay. Mar walba oo aad ilaaliso waqtiga, waxaad ka hortagaysaa hawl badan oo dib u dhac kuu keeni karto. Haddii aad ilaaliso waqtiga, waxaad ka hortagaysaa walwalka, waxaadna bilaabaysaa maalin walba nolol wanaagsan oo qurux badan. Haddaba dadka intooda badan kuma qanacsana nidaamka ay nolosha ku maareeyaan, sababtuna waxay tahay inaysan garanaynin waqtiga iyo qiimihiisa. Culimada cilmi nafsiga ayaa waxay sheegeen in walwalka badan ee dadka qaar ku dhaco ay sabab u tahay in iyaga oo aan ka faa'iidaysan waqtigooda, taasina ay u keenayso caafimaad xumo iyo iscanaanasho badan. Haddii aad si qoto dheer u fiiriso qaabka dunida ay ku socoto iyo nidaamka Alle ugu talagalay, waa mid ku saleysan waqti. Maalinna ma arkaysid iyadoo la leeyahay qorraxdii ma soo bixin. Ugu dambeyn, in aan ka faa'iidaysano waqtigeena, ugana faa'iidaysano wax walba oo wanaagsan, waxaan ku gaaraynaa guul. Noloshuna waxay noqonaysaa mid wacan oo aad u dhadhamaysa. Maamaha caan ah oo afka Carabiga ayaa jirto oo ah, al-waqtu ka-sayf in lam taqdachu qadacaka. Waqtigu waa sayf, haddii aad jari weysana adiga ayuu ku jarayaa.